qaybta labaad intaynaan u gudagelin fadlan channelka subscribe saar riix gambaleelka si ay kuu soo gaadhaan muuqaaladaan soo gelino. dhiirigelinta saaxiibkay kadib waxaan muddo 5 daqiiqo ah daba soconay midii aan gaclooday iyo asxaabteydii oo sheekadu ay meel wanaagsan u marayso. anigii saaxiibkaygana aadka u jeclay waxaanu muddada qadarka daqiiqada ah qaada dhiganay lafa guranay qaabkii aan u soo xirogelin lahayd quruxleyda aanu jeclaanay. waxaa ismacaan salaameeyey wardo oo ah qofkaanu dhibta u marinay qalbigaygana jiidatay iyo asxaabteydii waxaanay warda qaadatay mid ka mida basaska ah u baxa xaafadda goljanno ee magaalada Hargeysa. waxa ay ku dhacay jahwareer waxaanan garan waayay wixii aan samayn lahaa maadaama ay raacayso bas wardi, balse saaxiibkay kamuu labalabayn inaanu baska raacno wuxuuna markiiba cagta saaray baskii. 15 daqiiqo ayaanu saarnay baskii waxaana joojisay baskii warda oo soo gaadhay halkii ay kaga deg lahayd. waxaan u dhaqaaqnay xaggii warda ay naga xigtay ama ay u sii socotay. kadib waxaanu la hadalnay warda si aanu wakhti ula qaadano, balse wardi namaysan wakhti nagu filan. waxaanay hadalkeeda oo qoorsi ka muuqda ay sii raacisay wakhti diinma hayo ee dhabada cagta saara iyadoo dhoolla caddaynaysa wardi. waxaa igu caddaatay talo waxaa igu yaraaday dhulka afka ayaana juuqda gabay, balse saaxiibka ayaa waxa uu ii sheegay inaan wakhtigayga qaato oo aanan niyad jabin. kadib waxaanu ku soo noqonnay goobtii shaaha iyo sheekada iyadoo asxaabtu jawaab farxadla naga sugayaan, balse aniga aan ahay maqana jooga farxaddiina ay murugo ay dhashay. waxaan niyadda ka leeyahay talow wakhti kale maad arki. kadib waxaan go'aansaday inaan u dhaqaaqo xagga iyo xaafaddii si aan u helo hawo aniga ii gaara. waxaan dareema diiqad nafsaaniya, daal iyo weliba niyadjab aan yarayn. waxaa igu dheeraaday habeenkii waxaana igu ballaadhay wakhtigii, waxaa igu yaraaday faraashkii, waxaa igu yaraaday samarkii. waxaanay nafta ku celilinaysaa talow waagu muyu baryo aad mudantii hawa kala kulantide. waxaa baryi waagii waxaanan u diyaar gorbay sidii aan u soo xirogelin lahaa warda oo aan ahayn shaqsi fudud sidii lagu soo xirogelin lahaa.